بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى كلنا كان خير الله كدغه خير كي وناقنا الله نوافجيه. انت أنا كلمة إذا باللعبين intaana kelimadayda bilaabin waxaan filayaa wakhtiga ugu badan cidda in la siiye laga faa'iidaysta ay tahay waa culimmada martideennu ah. innagu mar walba iyo maalin walbaan wada joognaa, marka waxaan rajaynayaa reer nairobi oo dadku si gaara iyo si guudba ama dawlad iyo shacab ay qabaan, doonayaan inay ogaadaan maxaa diin ahaan saxan oo dariiqii toosnaa ah, maxaase diin ahaan khaldan oo dariiqa wanaagsan looga weecanayaa. in dadkii sida saxan loo sheegana waxay leedahay saamayn fara badan oo jidkii saxnaa dadku inay gartaan, wixii ka qaldanaana ay iska saxaan. fatwada oo qalloocata oo dadkii wax qaldan loo sheego, dariiqa ay ku ogaadaan saxda iyo khaladka, wanaagga iyo khayrka ama sharka iyo xumaanta, ilaahay wuxuu ka dhigay su'aasha iyo jawaabta fatwada. wuxuu yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun. weydiiya dadka wax yaqaan haddii idinku aydaan garanayn. aadan laba shardi bay sheegtay. qofka wax weydiinaya waa qof aan garanaynin waxaanoo baahi u qaba. qofka la weydiinayana waa qof lagu tuhmayo inuu garanayo. halkaa waxaa ka baxay qof wuxuu garanaya dadka weydiinaya oo afti su'aal uruurinaya, baabulfatwa maaha. waxaa labaadoo ka baxay qof aan wax garanaynin ama aan lagu tuhunsaneen loo malaynaynin inuu garanayo la weydiiyey. su'aalaya khayr iyo wanaagdoon maaha. haddii aadan uba malaynaynin kuna tuhmaynin qofka inuu waxaan garanayo, waxaad u weydiisaay wax wanaagdoon maaha. dadweynaha guud waxaa la yidhi shacab bay noqon karaan, dawlad bay noqon karaan, su-aashu shakhsi bay noqon kartaa, mid ummadeed bay noqon kartaa, caqiiday noqon kartaa, axkaam bay noqon kartaa, maal bay noqon kartaa, dhiig bay noqon kartaa. wax kasta oo diinta ku saabsan mujtamaca intiisa badani fas'aluu baa la yidhi, weydiiya. culimmada weydiiya wixii aydaan garanaynin. haddaydan waxaan aqoon, haddaad taqaanana waxaad u weydiisaba ma laho, dhaqan bay kaaga baahan tahay. waxaad u baahan tahay inaad weydiiso. dadweynaha waxaa laga doonayaa wax aanay aqoon oo u baahan yihiin inuu yahay. qofkay la weydiinayaan ama weydiintooda ka warcelinayana waxaa la doonayaa inuu yahay qof ay filayaan inuu garanayo, isaguna aqoon ugu jawaabaya. sidaa darteed fatwadu waa dariiqa aasaasiga ah oo ummadda inteeda badani ku ogaadaan wixii ilaahay raalli gelinaya iyo dariiqa wanaagsan iyo toosnaanta. saas darteed dhowr arrimood bay fatwadu waxyaaba badan bay u baahan tahay. kutub badan baa laga qoray oo markii dambe fanni iyo cilmi gaar u taagan bay noqotay. laakiin maqaam waliba wax ku habboon buu leeyahay. waxaan isleeyahay 4 arrimood baa aasaas u ah markii mujtamaca fatwada lagu saxayo. marka koowaad waa ta aayaddu sheegtayoo waa inay aqoon iyo cilmi sugan ku salaysan tahay oo ay ka soo fushaa. qofka wax fatwoonayaay waa inuu aqoonteedii leeyahay. oo dadkao dhan weydiiya lama dhihinee ahla dikri baa la yidhi. qofku wuxuusan aqoon isagoo ahlu dikri ah ama cilmigii leh
hadday dhacdo mas'alo uunan aqoon in la weydiiyo qur-aanka iyo sunnadaa jawaabtayna baray. qur-aanka nabiga markii la weydiiyey nafta aadamaha ku jirta ilahi wuxuu yihi wayasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. waa inuusan dabbaalan waxaanu garanayne uu yidhaahdaa ma aqaan aqoonteedana ma lihi. waxaa lihi naftani maxay ka samaysan tahay ilaa hadda aadamuhu waa ku wareersan yahayo waa sidii aayadda ilaahay u sheegay nafta inagu jirteen ku noollahay markay ka baxdana jirkii uu meydka noqonayo say u eg tahay sidee u taal wax tilmaama lama hayo. qofku markay ka baxaysa keliyuu arkaayo mowdku markii uu malakulmowdku qaada tabicahu lbasar qofkaasina tegiyo kuu sharxi maayo si ay u eg tahay. aadamuhu ilaa waagaasaa lagu wareersanaa. haddana sababtu maxay tahay qul iruuxu min amri rabbi cilmigeeda ilaahay baa la gaar noqday. markii qiyaamada nabiga la weydiiyeyna waxaa la yasaluunaka can الsaacati ayaana mursaaha qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliha liwaqtiha ilaa hu. ilaahay baa cilmigeeda qiyaamada og cidnana uma sheegin. xadiidkii jibriilla waa kii ahaa ma almas'uulu canha biyaclama min asaa'il. anigaadi weydiinayso kaagama aqoon rooni. waa inaad tidhahdaa mas'aladan ma garanayo. haddaan wakti u hale haddaan heli karo awoodo ama aduu aad sugi karta waan kuu soo baadhi. haddaan gartana waan kuu sheegi. haddaanan garanna ma garanayaan ku dhihi. haddii kale culimo badan baa joogto maanta xiriirku waa sahlan yahaye bal culammada kale raadi oo weydii anu ma garanayo. saas darteed wixii uusan aqoon qofku inuusan gelin intaad taqaanana dadka u sheegto intaadan garanayninna ay fududaato inaad tidhahda su-aashaas ma garanayo. dadkana way badbaadi oo cid garanaysay raadsan aduguna waa badbaadi oo qofkii ummadda lumiyey noqon maysid. saas darteed fatwadu marka koobaadi waxay u baahan tahay aqoon wax aad taqaan inuu yahay qof wax yaqaanna la weydiiyo. qofka wax weydiinayana wuxuusan garanayn ama aqoonteedu u fadhiyin inuu weydiiyaa loo baahan yahay. qodobka labaad ee aasaasiga ah markii la fatwoonayo qof toosan bay u baahan tahay oo isaguba ilaahay ka baqaya. qof aan aqoonta iyo cilmigu xambaarsanaa isaga ilaahay aan uga baqaynin oon xuduuddeedii ilaalinaynin oon dhaqankeedii lahayn dee waxaa la yidhi faaqidu shayi laa yucطiih. qofku isaguba aad toosnaan ka doonayso isagiina aan toosnayn waa weel maran wax ka dayday weeye. ilaahay qur-aanka labada tusaale u xun qof aqoontii leh oon dhaqankeedii lahayn baa lagu tusaaleeyey ay iyo dameer. mathalu aladiina xumiluu الtawraata uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara. cilmigan uu xambaarsan yahay dameer kitaab lagu raray wey. culayskii baa ku dhacay laakiin dameer kitaab ma akhristo. rarkii culayskana waa saaran yahay. qofkana cilmigii iyo barashadii culayskii iyo dadaalkii iyo dhibkii waa ku dhacay laakiin nuxurkii iyo dhaxalkii iyo dheeftii ma haysto. sida dameerka tu saaran tahay culays mooyaan uusan caraf uga helin. marna ay baa lagu matalayo kamahali lkalbi watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina. waa qof ilaahay cilmi siiyey laakiin dhaqankeedii aan lahayn. saa darteed qofka fatwada la weydiinayo ee la doonaya dariiqa saxan in lagu garto waa inaad horta isaga eegtaa dariiqa ma ku saxan yahay. isagii haddii aad minaad sheekh ku ogayd oo qayilsanoo tal oo cirkaa garaacaya aad su-aal weydiiso dee kan su-aashaada rabta xaqa inuu ku tuso isaguna cabsanee sakhraansan muxuu kuu tari. nin isagii bakhaarkii mas-uulka ka ahaa baaranaya oo furanaya haddaad xaaraan iyo xalaal weydiiso isagaaba tuulo faraha kula jira muxuu kuu samayn. anaa dariiq saxa kuma tusayo qof aan isagu haynin.
صادق قفك فتوى لو يدينيو سي طريق صحن لوغو غرتو سي لوغو هانونو سي حق يا باطل كلوغو كلا اوغادو marka hore isagu dhaqankeedii iyo toosnaantii inuu leeyahay way sadarteed cidaad kaba ka tolanaysa Soomaaliya waxay tiraahdaa kabiisa leega hada kuwiisiba go'an yihiin maxaa kaba ii tolka dhig kuwiisiba ku dayacan min naftiisiiba diintii iyo toosnaantii ka dayacan tahay aqoontii diineed oo xambaarsanaa adiga de naftaadii iyo iimaankaaga ma dayactiri karo qodobka saddexaad ay muhiimka tahay in laga eego fatwadu hubsashay u baahan tahay waxa ugu badan ee u baahan ka fiirsiga iska xaqiijinta iyo hubsashada waa fatwada diineed ee ummadda lagu hagayo looguna tilmaamayo dariiqa xaqa markii mas'ala sharci laga jawaabayo laba dhinacba hubsashay uga baahan tahay waxaan lagu weydiiyay lagu sheegay sidee buu sax ku yahay gaaraan hadday dadka ku weydiinaya Soomaali yihiin mujtamaca Soomaaligu wixii ku soo duulay oo san hubsan buu wax ka weydiin haddaad su'aal ku celisana ma garanayo ku dhih isagii wuxuu rabaa inaad xukunkeeda u sheegto isagii baan garanaynin wuxuu yahay ma sharxi karo say wuxuu jiraan kuma sheegi karo markuu dan gaar ah qof ku leeyahayna inta uu isleeyahay waad ku marsan kartaa buu ku sheegi si aadan khaladna ugu fatwoon waxaan jirinna aadan uga hadlin waxay u baahan tahay waxaan jira inaad ogaato waa fiqul waaqic la yiraahdo horta masaladaad ka fatwoonaysa sida ay tahay aad iska hubsato su'aal baa lagu soo tuuraya ka su'aasha ku weydiinaya markuu soo galay buu Facebook wax ku arkay isagoo dhagaysanin buu qoraalkii hordhac ahaa buu su'aal diina ka weydiin isaga laftiisu ma oga waxa meeshan soo socda wax ka weydiinay mucaamalaad ganacsataa la yahayo bangiyada diinta in heshiisa gala maxay ka qabtaa buu ku dhigay bangi baan rabaa inaan la galo sid ula galaysaa marka tirada ma garanayo ku dhig qofka wuxuu ku weydiinayaba aan garanaynin adiga sida ugu jawaabtaa saas darteed waaqica fatwada waxaan laga fatwoonayo iyo duruufta ku xeeran hubsasho iyo xaqiijin bay u baahan tahay intaadan xukunka meel khaldan saarin dhinaca labaad masalada fatwada culimadeenu waxay ka dhigeen inay u baahan tahay mar walba inaad dib ugu noqoto kutubtii dib u akhriyood muraajacayso masaladii amaba aad maskaxda ay ku baridood ku gadidood bislayso marka masaladan maalin hore ka jawaabaysay waxbaa laga yaabaa aqoon inay kugu soo biirtay ama wax ka maqnaad xasuusatay ama duruuftan cusub baa tii wax yar kaga duwanaan karta sadarteed fatwadu way isbedeli kartaa waxaan laga fatwoonayana waa isbedeli karaa adiguna aqoontaadii iyo fahamkaagii waa isbedeli karaa xogtaad haysayna waxbaa ka bedelmi kara saas darteed inaad kutubtii iyo cilmigiina ku noqoto dib u muraajacayso milcisato waxa aad laga hadlayana aad hubsato say wax u jiraan waxay saameyn u noqotaa sababa in fatwo suganna dadka la siiyo wax la hubana dadka loo sheego maadaama ay dadku diin iyo iimaan iyo toosnaan ka sugayaan oo fatwada ka qaadanayaan qodobka ugu dambeeya isleeyahay waa lama huraan fatwadu caqli bay u baahantahay bisayl maskaxeed iyo waayo aragnimana way u baahantahay cilmiga waa la wada baran karaa caqliguse qaybo ka mida waa hibo ilaahaya dadka ganacsatada ah iyo nin siyaasi ah iyo mid oday dhaqan ah iyo mid aqoon-yahana in caqligeediina iyo inaan lahayn bay isugu jiraan inta diinta barataay in caqligeedii leh iyo inaan lahayn bay isugu jiraan taariikhda culimmada muslimiintu ma wada fatwoodaan waxay u baahan tahay fatwadu qof qiimayn kara duruufta uu ku fatwoonayo mar bay u baahan tahay aamus inaadan waxba ka dhihin mar buu u baahan yahay qofka fatwada rabaay
inaad xaaladuu ku jira qiimayso. waxaad u baahan tahay fatwadaad bixinayso maxaa ka dhalan kara inaad eegto. Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaah baa isagoo iska fadhiyo waa yeelay ninkii dhibka badnaa ee Xajaaj ahaaba u yimid. Xajaaj ninna wuxuu ahaa madaxa oo gacan kulul oo mar walba ka fikira sidee buu u sameeyaa qaab cusub oo dadka lagu cabsiyo loo ciqaabo. saxaabana ma xurmayn jirin, nusuus xuduudna ma celin jirin, laakiin nin xukun haysto oo dan xaajo fatwo diineed ka soo gashay buu noqday. Anas intuu yimid wuxuu yidhi Anas waa saxaabigii nabiga ahaaye intii taariikhda nabiga soo martay ciqaabtii ugu kululayd ee uu dad mariyo horta maxay ahayd? nimankii curaniyiintu u sheegay intay waan islaamna yidhaahdeen calool xanuun ku dhacay geel bannaanka daaqaya la yidhi u tago caanihiisi iyo kaadiisi isku darsada oo intay sameeyeen ay caafimaadeen ninkiina dilay indhahana masaabiir intay dab ku kululeeyeen indhaha ka geliyey geeliina dhacay. nabigu ciidan buu ka daba diray waa la soo qabtay intay ninkii ku sameeyeen baa lagu sameeyey midig iyo isnaafiina waa loo gooyey oo inamaa jazaau ladiina lagu qaaday. kadib biyaha nasnaasiya warna waraabiya lama waraabin karaa la yidhi siday ku wada dhinteen. tii buu uga sheekeeyey kaasuu yidhi haa war wax fiican baad ii sheegtay. wuxuu rabaa dadka inuu ku fuliyuu rabaa. markuu ka kacay lama hadli kara Xajaaj oo joogo isagoo khudbaynaya salaad haddii gaadha xataa mishaaro madaxa lagu tukan jiray. qof kici karoo tukan kara ma laha. qof ka maqnaan karoo dadka la yaqaano masaajidka oo laga waayana ciqaab baa la ciqaabaya. marka waa inaad timaadaa waa qasab. salaaddii way daahsan tahay ma dhigi kartid, keligaa intaa istaagta ma tukan kartid. salaatul khawf baa lagu dhex tukan jiray masaajidka. ninkiibaa wuxuu maanta helay daliil uu dadka masaabiir intuu kululeeyey indhaha ka wada mudo. markuu kacay bay rag odayaaloo taabiciintii culimmada yidhi war Anas radiyallahu anhu war Anas se waxa kaa noqday maanta war xadiidkan meeshii lagu sheegi lahaa halkan ma ahayn war ninkan ha u sheegtay isagu si xun ugu dhaqmi. Anas waa garawsado wuxuu yidhi ilaah waa iga hoos baxay. Cabdullahi ibn Cabbaasna nin baa u yimid isagoo ardadiisi dhex fadhiya wuxuu yidhi ninkii nin muslimna dila ka waran tawba ma leeyahay? markaasuu yidhi haa waa toobad keeni kartaa. maalkii dambana nin kaloo ordayaa yimid oo yidhi ibn Cabbaasow ninkii nin muslima ka soo dilay tawba ma leeyahay? intuu fiiriyey wuxuu ku yidhi maya. waa tegey waxaa la yidhi maxaa dhacay? ninkii hore nin wax dilo qoomamaynaya tawba rabo u ekaawi kan laakiin nin qil raadinayo haddii nin wax dilo raba buu ila muuqday. asalku waa xadiidka nabiga alayhi salaam. laba nin baa u timi xadiidka Abu Hurayra iyadoo Ramadaan maalin la sooman yahay. nin baa yidhi anoo sooman oy maalin tahay xaaskayga ma yartaa taaban karaa? markaasuu yidhi dhib ma laha. xiriir weyn maaha laakiin istaa taabasho way. nin kalaa yimid wuxuu yidhi sidii ma samayn karaa? markaasuu yidhi maya. Abu Hurayra wuxuu labadii nin baan fiiriyo ninka hore nin iska waayeelu ahaa ninkana nin dhallinyaro oo kulul oo kacayuu ahaa cirka maraya. marka kanna waa isxajin karaa kanna hadduu wax bilaabo hadhow isma xajin karo xoog iyo enerjiga ku badan. maxay fatwadaasi tilmaamaysaa? in duruufta aad ku fatwoonayso iyo waxa ka dhalan kara aad qiimayso. saa darteed fatwadu ani waan iska sheegi maaha. nabiga calayhi salaam markuu fatwoonayay qof kasta oo ashahaata janno inuu gelayo socon ku rasuulka Ilaahay oo ka daa dadku intay tala saartaan bay cibaadada iska daynayaan. nabigu waa ka aqbalay. baabu kitmaani ilmi lil maslaha waa mararka qaarkood baatil sheeg laguma laha laakiin lil maslaha inaad uga aamusto bay u baahan tahay. mararka qaarkood qofkan inaad isdhaafisaad u baahan tahay adigoon haa iyo maya midna dhihin. sooma dhihin runnaa sheegin beednaa sheegin waxa sheegtana hawaaye. haddaadan mas'aladii xaqiina sheegi karin aamusina karin waa inaad yeelan kartaa fahmo iyo caqli aad meel dhaxa kaga bixi kartoodan dembi baatilna u qaadin. dhibka aad ka baqaysana aad uga baxsato.
صدرت فتوض تقدير المآلات كوحل إرادة وباهنته أنا وحي اللي ويديه وأنا إسكشيد وحبيبي ما قري من سير عن علم فكتمه والجمع يوم القيامة بلجام من نار إذا حديثك إذا يتكلوا ما إسقنا ياله صدرت فتوض وحي وباهنته هي وحمل والبلغ ليشيا معها وحول وحلبول ويديه الله هذانا معها وحول بابا وقتي بوليه هي meel ku haboonna wuu leeyahay Umar radiyallahu anhu wardaahu markii aakhirka zamankiisii Maka isagoo jooga khilaafada Umar kadib dad ka hadlaya arkayada xaja dadkuna khalqi Ilaahay isu yimid wuxuu yiri waan istaagi oo dadka waan u sheegi ragii odayaasha ee culimada ee muhaajiriintu waxay dhan may meeshan dadka oo dhan baa isugu yimid waxaad ka hadlaysa dadku ma wada garan karaan iska sug Madiina aan ku noqono saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaa ahlul cilmiga ay hadalka garan karay isu soo hara marka waxaad rabta sheeg saad rabta loo fahmi laakiin dadaan hadalkaaga garan karin iyo meel aan ku habboonayn haddaad tiraahdo boqol waxoo kala loo kala qaadan isna waa garawsaday xajkii uu rabay inuu ka hadlo wuu baajiyey wuxuu dibdhigay Madiina iyo dad fahmi kara wuxuu ka hadlayo sadarteed fatwadu si ay ummadda u anfacdo jidka saxanna la maraan waa in waxaad ka fatwoonayso waxa ka dhalan karana aad eegto waxa ku xeeranna aad eegto waxa keenayna aad eegto kadib aad go'aansato ma tahay goobteedii iyo waqtigeedii iyo meesheedii mise maaha in idaacad la shiday iyo muftigu cajalad markii raba la daara uu noqdo maaha gaar ahaan waqtigan aan joogno warkana la bedelo hadalkana la googooyo qof walbana muslim iyo gaalkii la rabo codkiisa laga soo saari karo wili maqal iyo muuqaal inta la isu jarjaro la samayn karo ninka fatwoonaya waa inuu in badan digtoonaada waa inuu ka fiirsadaa waxa uu ka fatwoonayo qaybta ugu dambaysa hadalkayga waan dheereeyay baan filayaaye fatwadu markay qaloocato ummadda way lumisaa mar waakhir zamaanka marka la sheego la gaaro wuxuu ka digay fatwo aan lahayn wixii loo baahnaa xadiidkii cabdillah ibn camr ibn al-aas fi sahih al-bukhari wa muslim wa qala inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbiduhu biqabdi banaynaya oo tuugada banaynaya oo dhaca banaynaya oo khiyaamad iyo musuqmaasuq banaynaya oo dadkii in la dhaco la laayo banaynaya oo kula ka ku baalashay kala dhuumo supermarket-kana xad haddaad rabto hoosta gasho bankigana jabsa ku leh oo muxaramaadkii amwaashii kuwa cirdigii fatwoonaya hadday soo islaantay takfiir baana la yidhaahdaayo furiin uma baahaneen meher cusubun baa lagu qabana carruurtoodii xaafadna joogtay halka kuwa kale ku dhaldhalaysaa meel lagu furayna ma laha mufti lmaajin waaye fatwadu markay qalloocato cirdigaa la bannaysanayaa oo maalkaa la bannaysanayaa oo dhiiggaa la bannaysanayaa oo qofkii muslimka ahaa ee dhiiggiisu macsuumkaa inaad disho naar lagu geli jiray baa waxaa lagaa dhaadhicinayaa intaad disho xaqdarra ku disho buu aakhara kuu mahad celinoo kugu isku duubiyo shukran shahiid baa laga dhigtay buu ku dhihi wixii naarta lagu galayey baaba waad ku mahadsan tahay aakharo abaal baad ka heli lagu dhihi maxaa keenaya fatwo qalloocsan baa dadka dhiigoodii iyo diintoodii iyo maalkoodii iyo cirdigooda bannaynaysa dhinaca kale mid qalloocsan baa qabri la baryo iyo awliye ilaah laga dhigto iyo mayd wax laga tuugo mid baala way bannaan tahayoo fatwo dad ugu sheegaya aan diin iyo daliil sal ku lahayn war intee ka keentay haddii lagu yeelana waxaa la dhihi jiray buu ku leeyahay war diinta goormay noqotay asalkeeda iyo daliilkeedu waxaa la dhihi jiray dhinaca kale markaad timaadee suuqaa dhiman mid baa wax walba xalaala bangiyadanaa tegi heshiis kasta oo ribo ah wadaad la yidhi shariica boodh buu ku jiraayoo baneeyey baad ugu tegi kuwan bangiyadan magaalada nairobi la macaamilo kan shariica boodhka ah markaad la kulanto
waxaan meesha qoran waxbaba kama garanayo laakiin fadhi kastaba waxaan allowansiski iyo waxoogay baa lagu qaataa intaasaa ugu daran waxaana lagu leeyahay shariica boorka hebel iyo hebel iyo hebel baa ku jira hebelkoo diin ma yaqaan wax badanna dan kama laha fataawa almaajina marka waxay keentaa fataawadan aan xuduuda lahayn marna dhinacaa iyo huluwiga inay dadka u baabi'iso marna dhinacaa iyo shirkiga ay ku baabi'iso marna dhinacaa iyo xaaraamta iyo wax walba la fududeeyo ay geliso waxaa keena ummaddu inay sidaa u lunto xaaraan cunto oy gogosheedii iyo gurigeedu xaaraan noqdo oy dhiiggeedii iyo maalkeeda isxalaalaysato oy shirkigii iyo bidcadii xalaalaysato fatwo xaqdarro ohoon xukun sharci iyo daliil saxan iyo xuduuddeedii la ilaalin baa sabab u ah intaa markaad isu geysa waxaad garan kartaa fadwo qaldan ummadda intay dhumin karto oo nabigu tilmaamay fadalluu wa adalluu yidhi iyana waa lumeen ummaddana waa lumiyaan waxaan waagii hore haysan jirnay haddana weyni baan ku soo gunaanadayaa waagii hore muslimiintu jiri jireen cid xakamaysa oo ciddaan dadkeedii ahayn xad u yeesho oo dowlado waxayirtaa jiri jirtay waayihii dhaxana dadka oo kooban oo la garan karo cidda wax la weydiinayo bay noqon jirtay hadda wax walbaba social media iyo internet iyo TV baa wax walba xargihii u gooyey xataa qofku meeshan uu fatwada ka qaadanaya waxay tahay ma yaqaan haddii maanta gaaladu ay website fataawaha kuu samaysato intaa ka soo qaadato baa isaga dhaqmi oo dhihi maysid war meeshan waxan yaa sameeyey sheekh internetka ka hadlayaan arkay buu ku dhihi ogow dad badan oo gaala ah oo websaytyada baa jira fataawa islaamiya ah khawaarij baa leh shiicaa leh qaadiyaaniyaa leh cid kastaa meesheeda samaysatoo camirata saa darteed waxaan dhihi lahaa gunaanadkayga war kafi fatwadu waa raasamaalka barashada diintiinna waana jidka ummadda guudi jixa saxan ilaahay lagu raaligeliya toosnaanta ay ka raadiso waxaad raadinaysaanna waxaad u baahan tihiin oo toosnaan ka rabtaan ha noqdo meeshaad ka raadinaysaanna ka fiirsada oo dadka waraysta yaa wax weydiin karnaa xaggeen ka raadinnaa meeshii saxnayd ma tahay cid isaguba waalatay oo luntay yaanay adigana ku luminin kuwii dameerka iyo ayga lagu matelay ilahi subxana wa taala xaqa inagu sugo khayrka iyo wanaaggana allah inagu soo dabaalo kuwii wanaag ka shaqayn allah inaga dhigo waa mahadsantihiin raalli ahaada waa idinku dheereeyey culimo badan baan ka qaato oo marti ahayd oo iga mudnayd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu